madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gogol markaasi wada tashi ah waxa uu ugu yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Galmudug halka sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle uu yeeray balse waxa goobta ka maqan madaxweynayaasha kale oo ka mid yahay madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Puntland iyo waliba sidoo kale madaxweynaha Khaatuma State maamul goboleedyaha shirka loogu yeeray ayaa markii dhinac laga fiiriyo waxa loo fasiran karaa in Xasan Sheekh Maxamuud uusan ku soconin habkii markaasi Soomaaliya loo hogaamin lahaa oo laga dheehan karo in Xasan qaab qabyaaladeed oo u shaqeynaya asagoo ah madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha ayaa marar badan waxa lagu eedeeyay sidaan oo kale habdhaqan aan wanaagsaneyn oo kamid tahay markii uu dhisayay macawisleyda oo marar badan macawisleyda uu ka dhisay deegaankii haybahan uu ka soo jooday balse deegaanada kale uusan tagaynin hase yeeshee Soomaaliya ayaa waxa ay ku heshiisay 4.5 oo markaasi ah qaab qabiil in wax lagu soo doorto markii goosha la isugu tagayana qaab qabiil la isugu tago oo markaasi Soomaaliya ay heshiis ku wada ahayd balse haatan ayaa waxa muuqato in Soomaaliya lagu kala dhaqaaqay beesha caalamka ayaa waxa walaac balaaran ay ka muujinaysaa habka ay ku sii socon karto Soomaaliya hadii Xasan Sheekh Maxamuud uu sii joogo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo marar badan ka hadlay media ayaa waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi garanaynin waxa uu ka shaqeynayo oo istiraatiijiyada uu ku socdo ay tahay mid Soomaaliya ay ku kala tagi lahayd Soomaaliya uma baahno in la kala diro waxay u baahan tahay in la isu keeno ayuu marar badan sheegay halka sidoo kale dowlad goboleedka Puntland ay dagaal kula jirto kooxaha argagixisada oo ka dagaalama buuraha calmiskeed lama arag madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo halkaasi ka hadlayo ama gargaar u dirayo haday ahaan lahayn taa kula ciidan iyo waliba sidoo kale gargaar loo fidiyo dadka shacabka ee halkaasi lagu dul dagaalamayo oo dowlad goboleedka Puntland waxa sidoo kale dagaalo ba'an ay ka socdaan maamulka Khaatuma State oo haystaan maamul goboleedka Somaliland lama arag madaxweynaha oo ka hadlayo arintaas oo dhan oo isbiirsaday madaxweynaha waxa lagu dhaliilayaa in markaani uu yahay qabyaaladeyste aan garanaynin qaabka loo hogaamiyo Soomaaliya iyo istiraatiijiyada ku haboon oo markaasi ay ku socon karto Soomaaliya loo dhan yahay dastuurka oo 4.5 ay u qoran tahay ayaa Soomaaliya waxa ay heshiis ku ahayd in markasta isla ogol lagu qabto doorashada iyo waliba sidoo kale shirarka dhacaya intaba balse haatan ayaa wax kasta waxay u muuqdaan inuu marooqsaday Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale markii laga fiiriyo ayaa Soomaaliya beelaha ugu tunka weyn waxa kamid ah beelweynta daarood oo si weyn looga yaqaan guud ahaan bagiga Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale halka sidoo kale beesha hawiye oo ka soo joodo Xasan Sheekh Maxamuud haatan ay u muuqato mid markani arintaasi isku raacsan taliyaha nabad sugidda Sanbalosha ayaa marar uu ka hadlayay idaacadaha waxa uu sheegay in beesha hawiye iyo beesha daarood ay hore u direen isla markaasna ay haboon tahay in dastuurka ay qoraan beesha hawiye Xasan Sheekh Maxamuud oo arintaasi inuu qaatay loo maleynaya ayaa marar badan waxa uu sheegay inaan cidna loo joojinin dastuurka Soomaaliya halka sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle uu horay u sheegay in Soomaaliya markani ay haboon tahay in beesha daarood aan waxba laga weydiinin oo uu sheegay in beesha daarood ay ka badan tahay beesha Jararweyne waaso hadalka u dhigay hase yeeshee haatan bilaha nagu soo aadan ayaa waxa Kismaayo ka dhici doono shir balaaran oo la sheegay inuu soo qalqaaliyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam shirkaasi isugu imaan doonaan beelweynta daarood waxgaradkooda culimo u diinkooda oo qaashooda iyo waliba sidoo kale maamul goboleedyaha haybahan ay ka soo joodaan